أعلن الآن على بركة الله kulankii degdega ah ay isugu yimaadeen wasiirada amuuraha dibadda ee dalalka jaamacadda carabta waxa uu muujiyay midnimo iyo cadho ay kaga soo horjeedaan go'aanka dowladda Mareykanka ee Qudus ay ugu aqoonsatay caasimadda Israel waxaana sidoo kale ay muujiyeen go'aanka Mareykanku inuu yahay mid khatar badan oo xasarad ka aloosi kara bariga dhexe ee dunida Islaamka. Maxamed Cali Yuusuf wasiirka amuuraha dibadda ee Jamhuuriyadda Djibouti oo shir gudoominayay kulanka degdega ah ee wasiirada amuuraha dibadda jaamacadda carabta ayaa waxa uu sheegay in jaamacadda carabtu ay si buuxda uga hor imanayso isla markaasina ay diidan tahay tallaabada Mareykanka kuna tilmaantay mid aan si nabad loo aqbali karin oo lid ku ah qaanuunka caalamiga. انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمتين العربية والإسلامية أن هذه الخطوة غير القانونية. jaamacadda carabta qodobada ay soo saartay waxaa ka mid ahaa in la sameeyo guddi nabadeed oo qadiyadda Falastiin u bandhigta caalamka isla markaasina difaacda qadiyadaasi waxaana guddigaasi la dhisi doono madax u noqonaysa dawladda Urdun. سيكون هنالك تشكيل لوفد منبثق من لجنة مبادرة السلام العربية سيتولى هذا الوفد مسؤولية توجه إلى المجتمع الدولي إلى الحديث مع كل العواصم المؤثرة. xogayaha guud ee jaamacadda carabta Ahmed Abul Ghaid oo isna kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay Mareykanku inuu qaaday tallaabo xaq darro ah oo uu wax kaga bedelayo meeqaamka magaalada Qudus oo ah caasimadda Falastiin taasoo ku tilmaamay inay saameynayso dunida carabta oo isugu jirta muslimiin iyo masiixiyiin labadaba. waxaa kaloo uu sheegay si guud ahaaneed inay u saameynayso caalamka islaamka. إن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية هو قرار مستنكر ومرفوض ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أو بأي منطق. أحمد أبو الغيد xogayaha guud ee jaamacadda carabta ayaa u soo jeediyay wadamada caalamka ee samahaya nabadgelyada jecel inay kor u qaadaan codkooda isla markaana Falastiin ay u aqoonsadaan dawlad madax bannaan oo caasimadeedu ay tahay Qudusta bari. فإننا ندعو كل الشعوب المحبة للسلام لأن ترفع صوتها صريحا برفض قرار الرئيس الأمريكي ونؤكد أن الرد العملي على هذا القرار المجحف وغير القانوني ينبغي أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. wasiirka amuuraha dibadda waddanka Lebanon Gabran Basil oo hadal ka jeediyay kulanka jaamacadda carabta ay kaga hadleen Qudus ayaa waxa uu soo jeediyay Mareykanka si loo xanuujiyo wadamada carabta ay cunaqabatayn saaraan isla markaasina ay ka joojiyaan shidaalka ay ka iibiyaan Mareykanka. بوقف التعاملات النفطية مع الولايات المتحدة وتدابير أخرى مما أجبرها فورا على وقف إجراءات نقل سفارتها إلى القدس. taariikhan jaamacadda carabta waxaa la aasaasay 1945 ujeedada ugu weyn ee loo aasaasay xilligaasina waxaa koow ka ahayd qadiyadda Falastiin kadib markii halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhaxeeya carabta iyo yuhuudda. waxaa kaloo jaamacadda carabtu xilligaasi ay si weyn u taageertay oo la aasaasay ururkii xoreynta Falastiin ee uu hogaamin jiray Yaasir Carafaad. 3 sano kadib markii uu dhacay dagaalkii 6 maalmood jaamacadda carabtu waxay soo saareen qaraar lagu gaaray waddanka Suudaan oo lagu magacaabi jiray qaraarka Khartoum xilligaas oo jaamacadda carabtu ay isla qaateen in Israa'iil aan la heshiinin wada xaajood lala gelin isla markaasina aan loo aqoonsanin dawlad jirta. waxaa si xigtay sanadkii 2002 jaamacadda carabtu mar kale ay fadhiisteen Beirut caasimadda Lebanon halkaas oo ay ka soo saareen qaraar kale qaraarkaas oo godoominta ka dabcinaya Israa'iil isla markaasina Israa'iil loogu baaqay inay ka baxdo dhammaan dhulkii carabta ay ka qabsatay dagaalkii 6 maalmood isla markaasina Falastiiniyiinta ay u aqoonsato dawlad madax bannaan. qaraarkaasi ayaa carabtu mar kale waxay dib u ansixiyeen sanadkii 2005 ha yeeshee ilaa iyo xilligaasi Israa'iil dhaguma dhigin qaraarka carabta waxaana hadda soo kordhay xaalad kale oo Mareykanku uu ku soo kordhiyay bariga dhexe.